waxa inoo bilaabatay bishii barakaysneed ee Ramadaan ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu inagu waajib yeelay. bisha Ramadaan waxa ay leedahay fadaa'il tiro badan oo qofkii ka faa'iideysta oo abaalmarino weyn helayo. fadaa'isha bisha Ramadaan ay leedahay waxa kamid ah waa bishii Qur'aanku soo degay. Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aan. bisha Ramadaan waa bisha Qur'aanka dhexdeeda Ilaahay uu soo dejiyay. bisha Ramadaan marka ay soo gasho Nabi Cali sallallahu waxa uu tilmaamayaa xadiis macnihiisu yahay albaabada jannada ayaa la furaa, kuwa naartana waa la xiraa, shayaadiintana waa la jeebadeeyaa. fadaa'isha bisha Ramadaan leedahay waxa kamid ah qofkii sooma bisha Ramadaan xaal uu yahay mid iimaan la ajarna xisaabsanaya, dunuubtiisa hore waa la dhaafayaa. xadiiskan kale wuxuu tilmaamayaa in dadka saa'imiinta ee sooma ay jannada ku leeyihiin albaab la yiraahdo Rayaan. waxaa looga yeerayaa albaabka dadka soomi jiray oo kaliya, marka ay galaana cid kale oo iyaga gadaashooda galaysa ay ma jirto. fadaa'isha bisha Ramadaan laba soo koobi karo. Nabi Cali sallallahu xadiisul qudsi Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka warinayo ayaa waxa uu leeyahay amal kasta in aadam isaga leh, laakiin soonka aniga iska leh, anigaana ka abaal marinaya. xadiiska inta dambe Nabi Cali sallallahu waxa uu raaciyay isbedelka ku yimaada afka qofka sooman waxa uu Ilaahay agtiisa uga dhigan yahay riix miski ama carafta miskiga ayuu ka udgoon badanyahay. haddaba bisha sida fadliga badan waxa la rabaa inaan acmaal uga faa'iideysano, soono, salaatu leyl tukano, Rabbi subhanahu wa ta'ala u soo laabano.